labada qodob ee aan soo qaadanayay maanta ee runtii muhiimka waxa weeyaan waa xirfadaha caadiga ee qofku ku shaqaysan karaya skillska taa iyada marka leen ka hadli doono oo ay adag tahay in goobaha waxbarasho lagu barto waxa laga yaabaa qof jaamacadda ka soo baxay civil engineering inaanu garanayn xirfad civil engineering kamida oo maanta uu ku shaqaysan karayo ama toos uga hawlgeli karayo waxa laga yaabaa markuu jaamacadda ka soo baxay inuu adaanu civil engineer baanahay anu electrical engineer baanahay inaanu xirfad kamida xirfadaha lagu shaqeeyo electrical engineering hadday noqoto tusaale power control hadday noqoto tusaale installation hadday noqoto solarka hadday noqoto lightka si guud caadiga iyo waxyaabaha la midka oo dhan inaanu xirfadii si toos aan loo barno si toos aan u sii diranayn oo hadhow ay dib ugu noqoto inuu khibrad iyo xirfad iyo marka uu dib u soo barto isagoo jaamacaddii markaa soo dhameeyay marka taa iyada mar baan ka hadli doonaa iyo qofku sida uu kobcisan doonaa laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waa xirfadaha nololeed aan u baahana ee ay muhiim tahay aqoon kasta oo leedahay inaad iyagana lahaato si aad noloshana u waajahdo bulshada iyo deegaanka aad ku dhaqanteena markaa aad qof successful aad u noqoto oo markaa wixii uu hayay si wacan uga iibgeeya